وعادة كدكتين inay ku weydiiyaan isbeeliyaan erayada isbeeliyaan war erayada jumla loo sheegaa jumlada ayaa looga haraa qofkii fasiro karaa ha fasirto waxaan halkan u nimid waa caddeeyey waxaan halkan degmada maxaas joognay muddo dhowr cisho ah saad la socotaanba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa halkan yimid oo noogu yimid sidaan safarkeennu ahaana sidaasay ahayd dalabaad ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan ku nimid degmadan maxaaseed waxaa laga hadlaynaa intooda badan wixii laga hadlayna waa la isku afgartay oo maxay ahaayeen soo jeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu waxay ahayd 2 qodob konseenkii siyaasadeed ee la qabay inuu maanta aan laga hadlin ee dib loo dhigo dalkuna dagaal buu ku jiraa dagaal la galo nuxurku intaasuu ahaa annaguna waa la qaadanay sababtu ay tahay cadow bi'iye oo fayrus ah oo aan cidna waabayeelayn oo dilaa wuxuu dilayaa diinta islaamka wuxuu dilayaa akhlaaqda suuban iyo dhaqanka wuxuu dilayaa damiirka iyo soomaalinimada wuxuu dilayaa nolosha iyo ganacsiga wuxuu dilayaa ool waxbarasho iyo manaahijta islaamka oo dhan mar hadduu dilaa yahay noocaasa oo laga yaababa in ujeedda inta aan qiyaasayna ka weyn inay ka sii dambayso waxaa laga yaabaa dadka soomaaliyeed inay u fahamsan yihiin niman xukun raba ama diin wada diin maaha oo dee diin waxaa loo geeyaa dadaan muslin ahayn annagu ma shiki baa ku jira inaan muslin nahay qof soomaaliya oo kirishtan miyaad garanaysaan oo soomaaliya jooga ma jiro inta calal yar halkaa madaxaa lagu soo duubto in la yidhaahdo anaa ku xukumaya waxaan kugu xukumaya anaa garanaya diin baan wadaa diinta aan wadaanata islaamka maahe waa tu anugu aan garanayo war waxaasi maxay yihiin ma waxaan aragnayba xaggee kontonkan sare ee soo socota haddaan laga hor tegin waxa maanta muuqda kontonkan sane ee soo socota see noqonayaan dad soomaaliya see u ekaanaysaa sawirka soomaaliya 50 year kadib siday u ekaanaysa balfiiriya maxaa idiin soo baxaya waxaa soo baxaya in diinta islaamku meesha ka baxayso waxaa soo baxaysa inaan wax jiraaba jiroonayn tootalaminto mar hadday sidaa tahay soomaaliya waa inay u diyaargarowdo dagaal soomaaliya mar labaad waa inay dagaal u diyaargarowdo dagaalka hebel loogu danaynaa ma jiro dagaalka koox gaaroo xil ka saaran yaha ma jirto dagaalka soomaaliya oo dhan buu u yaallaa waxaan rabaa wax yar inaan idin xusuusiyo dagaalkii 77 ay soomaaliya gashay haddaana qaldanayn bobulationka soomaaliya 6 milyan meelahaasuu ahaa ciidamada dagaalka galana 35,000 qiyaasta meelahaasay ahayd in ciidankii intaa ogeed la ekaa iyo bobulationka intaa ogeed la ekaa ee waddanka aan la dagaalamayn in guula laga soo hooyo waxaa sababayaan idiin sheegaya qadarta alla ka sokay ciidamada soomaaliya ay tababarnaa iyo hebelow iyo keliya maaha nuxurku kaa maaha nuxurku wuxuu yaan idiin sheegayaa askariga etoobiyaanka xabadda daafida oo dawladdu siinayso
wax aan ahayn oo qof shacaba ka heli kara ma jirin laakiin qofkii joogay baa garanayee gabdhaha soomaaliyeed qof kastoo shacab oo soomaaliya xoolo ayaa la ururinayay caano subag maxay kale yacni waxa dawladdu ku caawinaysa ciidamada marka saanadda laga reebo cuntada la isticmaalaya waxaan garanayaa labada warshadood ee kaarnabiif iyo la dhihi jira laasqoray marka laga reebo daraay fuudka kaloo la isticmaalayay iyo hilibka la isticmaalayay shacabka soomaalida bixinaya shacabka soomaaliyeed baa dhiibaya taasi waxay idin tusaysaa dagaalka dadka soomaaliya hadday galaan in guula laga soo hoy karo guulaa laga soo hoy karaa haddii alla idmo arrinkaas waxaan ku adkaynayaa qof kastoo soomaaliya oo damiirkiisu nool yahay inuu ka qayb qaato dagaalkaa una istaago dagaalkaa inuu ka qayb qaato una istaago annaga waxaa soomaalidu tidhaahdaa deegaankan iyo dadka jooga waa halkii nimankan fayraska looga bilaabay ama khawaariij ama ugus ama magacyadooda bijinni meeshii dagaalka looga bilaabay ee lagala galay inuu deegaankan iyo dadkan ahay saas ayaa soomaalidu saasay tidhaahdaa waana run maadaama aan ku astaysnayn arrinkaas waxaan dadka deegaankan ka soo jeeda weliba si gaara aan u leeyahay waxay soomaaliya idinku taqiin waa in laydinka helo soomaaliya xilligan culimmada soomaaliyeed culimmada saxda ah ee soomaaliyeed ee diinta wakiilka ka ah ilaa nebigii calayhi salaatu wasalaam qoloba in meel bay soo dhaxashay diinta islaamka niman gacanta ka saarayaa yimid niman bi'inayaa yimide fadhiga ka kaca mas-uuliyad baa ini saaran xaqa miyaa lala gabadaa xaqu miyuusan ka leerahayn xaqu wax cad maaha miya war xaqa bannaanka la soo istaaga ha kula jirinaa xaafadaha ha kula jirinna masaajidda xaqa bannaanka keena bannaanka waxaan filayaa hadda ka hor ayaan intan fahmi waayey culimmada qaarkood baan ku yidhi war waxaa adduunka ka jira dadka anaa u sheegayee waxa aakhire ka jira kaalee dadka u sheega hadda waa idiinku celinayaaye aakhiriyo adduunba waxaa ka jira kaalee dadka u sheega culimmadana intaasaan leeyahay annaga safarkaasaan inta ku nimid mar labaadaan ku celinaa waxaan mana rabo dadka hadda soomaalida da'yartaa waxay caado ka dhigteen inay ku weydiiyaan isbeeliyaan erayada isbeeliyaan war erayada jumla loo sheegaa jumlada ayaa looga haraa qofkii fasiro karaa ha fasirto waxaan halkan u nimid waa caddeeyey halkan waxaan u nimid madaxweynuhu noogu yeedhay uun ka wada hadalnay xildhibaanada federaalka kuwo badanoo halkan yimid odayaal waxgarad kuwo hore u joogay saraakiil ciidan halkanaa la isugu yimid wixii laga wada hadlay labadaa arrimood ay ahaayeen waxaana la yidhi salaadaan wakhtiga maxay ahayd waxna dub baan u dhigannay in dub loo dhigana waa lagu heshiiyey micneedu maaha in wixii qofku qabe ama ummadu qabtay in tanasul maaha dub baan u dhignay wixii haddana hor taaganna waa in hadda la qabtaa oo maxay yihiin waa shayddaankan cidda kadinka taagan bawdka kore shayddaankan taagan in meesha laga saaro taasaa number one ah meel xasiloonoo la istaagi kara markii la isugu yimaadana wixii
laga heshii kale laga heshiiyo arrinka aan isku nimid sidaasuu ahaa dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan waan salaamayaa ilaahayna ha nabad yeelaan leeyahay soomaali maaha shaydaanka la cayrinayo soomaaligu ka mid maaha waxaan rabaa mar labaadan carabkay ku adkayna ama culimo ha ahaado ama gabar ha ahaado ama urur dhallinyaro ha ahaado ama oday ha ahaado soomaaliya yaa u maqan su-aashaa in la isweydiiyo war soomaaliya yaa u maqan soomaaliya yaa u maqan soomaaliya yaa iska le soomaaliya soomaali baa leh soo saas mayn haysti soomaaliya soomaali baa leh oo soomaaliyadaas waa tiye aad iyo aad aad u mahadsantihiin inaan intaa idhaahdo ayaan halkan u nimid galabta dagaalkaas mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa soomaaliya waa inay dagaal u diyaar garowdo annagu diyaar u midowdo waa in laga midoobo waa in laga midoobo nimankan in laga midoobo waa nimankan in laga midoobo waa fayraska eeg wuxuu rabaa inuu canugaaga dilo oo hooyadaa dilo oo adiga ku dilo adeer kuu sii dhaqnaadaan wuu rabaa yaa in kuwiisu ay dhaqnaadaanna wuu raadinayaa oo maxaasi ma dhacayaan marka war hadduu canug dilo 7 ka dila eygaygu dhalay yaa aniga waxaan hadalkayga ku soo xirayaa arrimaha na hor yaalla oo u baahan in si dhaba looga jawaabo soomaaliyey waa arrinta aan ka soo sheekeeyey in laga jawaabana way mudan tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin bangiga salaam Somali Bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo